magaalada Boosaaso waxaa maanta lagu qabtay doorashada 16 kursi oo ah dhammaan kuraastii lagu talagalay in halka lagu doorto. dadka doorashadaasi ku soo baxay ayaa waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee guddiga doorashooyinka federaalka ee heer Puntland, halka xildhibaanadaas ee markaasi Boosaaso lagu doortay ay ku jirtay hal gabar oo kaliya. haddaba waxaa goor sii horeysay khadka telefoonka igu waramay Maxamed Xasan Dhalo oo faahfaahinta inoo haya. waa mahadsantahay Axmedow. magaalada Boosaaso waxaa maanta ka qabsoontay doorashada xubnihii aqalka hoose ee kuraastooda ee olayd magaalada Boosaaso ahaa 16 xubnood. waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso meel dhexdiisa ah dhisme ku yaala ayaa doorashada maanta ka dhacay. waxaana maanta la soo gabagabiyay 16 kursi oo hal kamida ay gabadhi ku soo baxday, inta kaleetona raggii ku tartamay ay ku guuleysteen. waa tahay maxaa laga xusi karaa Maxamed dadka ku soo baxay kuraastaas maanta? waxaa laga xusi karaa dadka ku soo baxay kuraastaasi marka laga yimaado in dhammaantood ay rag yihiin, hal gabar ma aha inta kaleeto. waxaa ka mid a dadka kuraastaasi ku soo baxay gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka ee heer Puntland oo mid ka mid a kuraastaasi ku guuleystay. sidoo kale waxaa ka mid a oo isna ku soo baxay mid ka mid a kuraastaasi nin ka mid a xubnihii guddiga doorashooyinka ee Puntland ee doorashooyinka dowladaha hoose qabanayay ee dhawaan qardho ka dhacday 3 degmo lagu doortay ee la yiraahdo Tipek Cabdullaahi Mire waxa uu ku guuleystay kursi ka mid a kuraastaasi. waxaa kale oo ka mid a dadka kuraastaasi ka soo muuqday kuraastii hadalhaynta badan dhaliyey oo raggii siyaasiyiinta ahaa ee hore ugu fadhiyey aysan ku soo laaban golaha, oo uu ka mid yahay kursiga 169 oo ku soo baxay Cali Mahdi oo markii horena uu ku fadhiyey wasiir Jamaal Maxamed Xasan. kuraastaasi waxaa muuqata in raggii hore ugu fadhiyo siyaasiyiinta ahaa ee dhammaan Puntland deegaan doorashadoodu ahayd ay lumiyeen kuraastoodii oo rag kale ay ku soo baxeen. waa tahay Maxamed, marka waa xubnihii dabcan ugu badnaa ee hal deegaan doorasho hal mar ka qabsooma doorashada Soomaaliya oo dhan. marka maxaa sidaa loogu dadajiyay baa la leeyahay? waxaa badnaa halkan marka loo eego doorashada horta dhammaan kuraastaasi waxaa ku tartamayay min 2 xubnood oo ma jirin liiskii soo baxay kursi 3 qof ku tartamaysay. waxaa xusid mudan in dadku ay u badnaayeen kuraastan ku tartamayay rag iyo gabdho ay isugu dheelitiraayeen oo 13 ka mid a dadkaas tartamayay ay gabdho ahaayeen, laakiin dhammaantood raggii baa ka guuleystay oo ma ay soo bixin. sidoo kale waxaa muuqatay badankood inay tanaasuleen oo doorashada markii hoolka la galo oo ergadu ay hoolka soo gasho in dadkii musharaxiinta ahaa qof ka mid uu tanaasulayo, tanaasulkeedu badnaa oo looba tanaasulayo qofkii markii hore la saadaalinayay. doorashada marka waxaa dadajiyey oo ay sidaa ugu qabsantay in tanaasulkeedu badnaa oo ay yaraayeen wax cod ku tartamay oo hoolka marka la imanayay loo tanaasulay. sidoo kale doorashadani waxay xoogaa kaga duwan tahay doorashadii Garowe ka qabsoontay ee kuraastii lagu qabtay. uma badna dadka halkan ku soo baxay xubno dawladeed oo halka markii hore magaalada Garowe doorashadii ka dhacaysay dadkii ku soo baxay golaha wasiirada qaar ka mid ay ahaayeen, laakiin wajiyo cusub ayay u badan yihiin dadka doorashadan ku soo baxay. marka aan ka reebno xubnihii aan horey u sheegnay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka iyo xubnihii kaleeto. Maxamed Xasan Dhalo oo ii waramayay ayuu kaasi ahaa. isla wararkii doorashada ayaanu ku jirnaaye.